بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، sida walaalku tilmaamay darsigu wuxuu ku saabsanaan doonaa qasru اlأmal, rajada ama yadidiiladoo la soo gaabiyo. haddaan si kale uun idhaahnana waxa weeyaan aakhiro oo loo diyaar garoobo, oo qofku hadduu rajadiisu tuulu اlamal uu israa wax badan baad noolaan doontaa in sha allah, camal kasta dib uu u dhigi doonaa, xagga dambead ka hagaagi doontaa buu ku fakeraya. laakiin qofku hadduu nolosha si kooban uu u arko, hadduu xaqiiqada inaanu berriba noolaan karin haddii rabbi qoro uu fahmo, waxay noqonaysaa maantuu haystaa inuu maanta ka faa'iidaysto. haddaba mawduucan si aynu uga warranno waxaynu u baahannahay xaqaa'iq dhowra inaynu isla garanno. dhowr shay. ka koowaad waa xaqiiqatu linsaan, bini aadamka iyo qaabka alla u abuuray. bini aadamku wuxuu dunida u joogaa in la itixaamo. xorriyad baa ilaahay siiyey, waxaana loo abuuray qaab uu wax dooran karo. laakiin doorashada uu dooranaya waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo iraada go-aan. asal waxa uu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam, xadiidka bukhaari warinaya cabdillaahi bnu mascuud uu ka warinaya nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam. nebigaa wuxuu jeexay buu yidhi khad murabbaca square, khad afargeesla buu sameeyey. dabeetana nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam bartanku haddana khad kale ka dhex saaray. afargeeska khadkii ahaa ayuu khad kale ka dhex saaray. khadkaa dhexe xariijimuu u yeelay. waxa uu ku tilmaamay markaas, waxaan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashiisii, waa geeridii oo aanu dhaafaynin. khadkan ka dhex baxayna waa amalki iyo rajada. geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa. bini aadamku adduunka wuxuu ka baxaa isagoo weli qabyo arrimuhu ka yihiin, isagoo weli wuxuu qorsheeyey ay qabyo tahay buu baxaa. waxa uu kaloo nebigu xariijimaa yaryara kale ka baxaya ku tilmaamay inay tahay acraadu dunya, mashaakilka adduun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mashkilad la'aanaynin. idan wuxuu xadiidku sawirayaa qofka bini aadamka ah rajada iyo amalka uu qabaa, yididiilada uu qabaa inaanay xad lahayn, inay cimrigiisa iyo wakhtigiisaba ka dheertay. hada huwa اlasl. laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka ahi inuu masaladaa xadeeyo oo meel ka dhow uu arko. xaqiiqada labaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay geeridu waa alxaqiiqa alwaxiida almuctarafi biha bayna الnaas. waa xaqiiqada bini aadam oo dhami uu rumaysan yahay. cid kastaaba inay geeriyoonayso. waxaad garan kartaa un dadka intii kugu hareeraysnayd geeridooda. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi moxamed la hadlaya, innaka mayitun wa innahu mayituun. innaka mayit, waad dhimanaysaa baa la leeyahay, waa qasab. iyaguna way dhimanayaan, kuwan kaa soo hor jeedaana way dhimanayaan. kullu man calayha faan. waxaa nolosha kor saaran oo dhammi dhammaantood waa dhammaanayaan baa ilaahay leeyahay. wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum اlkhaaliduun. adiga hortaa cid aan waaritaan siinay ma jirta baa ilaahay leeyahay. adigu haddaad geeriyooto
ma yagaa waaraya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. idan haddaan nebi maxamed sayid اlkhalq ilaahay doortay ilaahay ku leeyay waad geeriyoonaysaa, waxa ka dambeeyana waa geeriyoonayaan. gaaladii ku jeesjeesaysee lahayd rayb almanuun baan la sugaynaa iyo waxaan baan la rabnaa, ilaahay wuxuu yidhi adiguna waa dhiman iyaguna way dhiman, cid hadhaysaa ma jirto. taasina waa xaqiiqo labaad. xaqiiqada koowaad waa in adiga rajadaada iyo amalkaagu u dheeriyey. xaqiiqada labaadna waxa weeyaan geeridu inay laabudda tahay. xaqiiqada saddexaad meesha taalla waxa weeyaan adduunku waa daaru mamar, waa dhul la marayo, waa meel qof waliba uu soo marayo. waad dhalatay, dabeetana maro yar baa lagugu duuduubo, waxaa la yidhi wiil baa reerka ku soo kordhay, gabadh baa soo korodhay. berrina waad baxaysaa, maro kale intay kugu duuduubaan bay odhanayaan waa mayda xabaasha geeya. adoo qaawan oo maro yar lagugu duuduubaad imanaysaa, adoo sidii iyo maro yaroo kale lagaa raaciyay baad haddana baxaysaa. idan waa mamar, waa meel aad marayso, waa jid bini aadamku uu muddo dhex soconayo. waxaana ka dambeeyaba rabbi tilmaamaya la kulanka alle, qof waliba inuu rabbi la kulmi doono, in la xisaabin doono, janno iyo naari inay ka dambayso. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum. geeridan aad ka baxsanaysaan ee aad ka rooraysaan waa idinla kulmaysaa. hadday meeli ku xanuunto dhakhtar raadiya, kan raadiya, adduun waxaad haysato ku bixi. waxaad rabtaa bal sidii aad maalma u sii jiri lahayd ayaad dadaalkeed ku jirtaa. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waa mulaaqiikum, waa idinla kulmaysaa. maxaa ka dambeeya? ثuma turadduuna ilىa caalimi اlغaybi والشhahaadة fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun. waxaa laydiin celinayaa baa la yidhi caalimu اlغaybi والشhahaadة, allaha waxa maqan iyo waxa joogaba og, allaha aan waxba ka qarsoonayn, allaha og wax kastoo aad samaysay, hadduu yahay waxaad qalbiga ku caqiidayso ku haysatay, iyo hadduu yahay waxaad ficil ahaanba u samaysay, wax kasta oo kaa soo baxay qofka bini aadamkaa rabbiga og. oo weliba ogaan qura maaha, fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay leeyay, oo idin warrami doona waxaad samayseen oo dhan. kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamة faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanة faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ilaa mataacu اlguruur. naf waliba geeriday dhadhamin baa ilaahay leeyahy. kadibna wixii aad shaqaysateen baa laydiin oofinaya, laydiin dhammaystiraya. ninkii naar laga durkiyo ee janno la geliyo, kaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. xaqiiqada afraad, xaqiiqada koowaad waa inaad amal badan tahay. xaqiiqada labaadna waxa weeyaan in laabud aad geeriyoon doonto. xaqiiqada saddexaadna waxa weeya inaad rabbi la kulmi doonto iyo xisaab iyo qiyaame iyo janno iyo naar. shayga afraad aynu tilmaamaynaa wuxuu waa wada tilmaamaynaa uun waxaa layna faray arrinku mar hadduu caynkaa yahay inaynu amalka soo gaabinno, adduunka rajada aan ka qabno iyo waxqabadkiisa adduunyo ku saabsan inaynu soo koobno, geeridana inaynu xoog u xasuusanno, ilaahay la kulankiisana inaynu xasuustiisa badinno. saa awgeed baa ilaahay wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah xaqa tuqaati walaa tamuutun ilaa waantum muslimuun. waar kuwa iimaanka laga helayow ilaahay rumeeya, kuwa iimaanka laga helayow alle cabsidiisa badiya. itaquu اllah, ilaahay ka cabsada oo ha geeriyoonnina baa la yidhi, ha geeriyoonnina ilaa waantum muslimuun, idinkoo muslima mooyaane. oo ha geeriyoonta miyaynu isu haynaa wakhtiga la geeriyoonayo? kaama haysid, laakiin maxaa lagaa rabaa inaad isu hayso? inaad islaamnimadan laasimtid. wakhtiga geeridu imanaysa garan maysid, maxaa waad dhiman,
ma barraad dhiman ma bil baad sii joogi ma sanadaad garan maysid laakiin waxaa lagu yidhi geeridu ha kuu timaado adoo diyaara adoo muslima oo ilaahay isu dhiibay geeridu ha kuu timaado walidaalika baa awraadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaa ka mid ah habeenkii markaad seexanayso inaad isa sii dhiibto tidhaahda ilaahu naftatan haddaad qabatana waxa aad dadka saalixiintaas aad u faxfadha ilaahu haddaad soo celisana yacni waxaad ku talagelaysaa wardigan aad akhriyaysaa macnihiisu waxa weeyaan waa seexanayaa se garan maayo inaan soo kici doono marka rajada waagu inuu kuu baryi doono baad meel iska dhigtay waa wardiga aynu akhriyayno markaynu seexanayno marka aad soo toostana wardi kale la yidhi oo akhri oo ah ilaahay inooleeya alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacda maa amatanii wa ilayhi nushuur ilaaha dib ii soo kiciyaan ku mahadinaya ilaahu jaanis baad siisay baad leedahay habeenkii markaad seexanaysana waxaad leedahay ilaahu naftan haddaad qabatana u naxariiso haddaad soo celisana saalixiinta waxaad ku ilaaliso ku ilaali haddaad soo toosto oo aragto inaad waa kuu baryo aad indhaa kala qaadayna waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu adaa mudan adaa ammaanta leh adaan kugu mahadinaya geeri dabadeed isoo nooleeyey idan waxaa la tilmaamaya qofka muslimka inuu diyaar noqdo markaad sii seexanaysana geeraad diyaar u ahayd markaad soo toostayna waxaad u arkaysaa jaanis aad camal ku siiso ku samayso in lagu siiyey idan kaa wardi ka dhiga baa lagu yidhi haddaynu awraadaynu akhrino habeenkii markaynu seexanay markaynu soo toosno aynu fahamno waxaynu garanaynaa in layna leeyahay istaciddu war diyaar noqdo oo waa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun xaqiiqo shanaad baa jirta oo maxay ah iyadoo intaasoo xaqaa'iqa laynoo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi akaru nnaasi waa haafil dadka inta badani waa dhoohani waa moogani xaqaa'iqdaa agtiisa taalla ee nafta bini aadamka iyo hungurigeeda uu og yahay iyo waxay raadacaynayso ee uu ogyahay in geeriyi ka dambayso ee uu ogyahay goor uu dhimanaya inaanu garanaynin ee uu ogyahay qiyaama iyo xisaab iyo rabbi is-hortaaggi inuu ka dambeeyo ee uu og yahay in loo sii sheego la yidhi war ha dhimanin adigoo muslima mooyaane intaasoo xaqaa'iqa isagoo og ayuu haddana bini aadamku haafil yahay hafla hafladu waa dhoohani waa waxay ahayd inaad xasuusato la ilaabayo nisyaan maaha waa hafla waa dhoohani waxay ahayd inaad xasuusato oo haddana aad moogan tahay waa waxay ahayd mar kasta inay xasuustiisu kula joogto oo sidii qof aan ogeyn aad u dhaqmayso hafladu markaa waxa weeyaan xaqaa'iqdaana waan rumaysnay haddana waxaan u dhaqmayaa sidii qofkii oo aan kiiba ahayn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun maa yaأtiihim min dikri min rabbihim muxdaثin ila istamacuuhu wahum yalcabuun laahiyatan quluubuhum dadka xisaabtoodu waa dhowaatay baa ilaahay leeyahy laakiin xaalad ay ku sugan yihiin oo ah gafla iyo icraad iyagoo haafiliina oo rabbi ka sii jeeda oo qiyaamaha xasuustiisa ku badnayn oo xisaabta xasuusteedu ku badnayn ayuu nool yahay xagga rabbi waana wax lagu xasuusinaya ugama timaadoo cusubi baa ilaahay leeyahy ilaa iyo waxay maqlaan iyagoo cayaaraya si jiddiya uma qaataan warka markaad si dhaba u qaadato waxaad ku tala gashaa inaad fuliso laakiin markaad qaadato warka maqashid adigoo aan jiddi ahayn adigoo aanay kaa dhab ahayn lacib baad iskaga jirtaa laahiyatan quluubuhum baa ilaahay ku tilmaamay walidalik baa ilaahay nebigiisii wuxuu ku leeyahay waandirhum yowma alxasra waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gafla wahum laa yuuminuun waxaad u digtaa oo uga digtaa oo ugu digtaa yowmu alxasra maalinta calaacalka maalinta tiiraanyada iyo murugada uga dig barri markaad geeriyooto rabbi irjicuuntaa badan doonta ilaahu jaanisna sii ilaahu iceli waxaa la tilmaamayaa mashkiladda taagani inay tahay